bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena halkan waa channelkeenu ku leenahay YouTube-ka ee madasha wararka qodobada ugu waaweyn ee aan daawadayaal saaxiibayaal idinku soo gudbi doonana barnaamijkan idinku soo maqana waxa ka mid noqonaya siyaasadii ku wajahneyd Itoobiya ee Soomaaliya ayaa isbedeshay kadib markii uu Villa Soomaaliya cagta soo saaray madaxweynaha iminka talada haya ee bedelay Farmaajo Xasan Sheekh Maxamuud warar dheeraad ayaan daawadayaal ideenna halkan ayaan idinku soo gudbi doonaa Abiy Ahmed oo ka shidaal qaadanaya madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxa uu iminka burburinaya dawladnimada Soomaaliya talo Xasan Sheekh Maxamuud mu ku eegan doona sidan faaqidaad ayaynu daawadayaal ku sameyn doonaa halkan ayaan idinku soo gudbi doonaa siyaasadii Itoobiya sida isku bedeshay isla markaana sida ay iminka isku rogtay ayaa barnaamijkeenan idinku soo gudbi doonaa Abiy Ahmed sidee ayuu Soomaaliya u kala dhantaalaya madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajona danta ugu weyn ee uu leeyahay maxay tahay faaqidaad ayaynu ku sameyn doonaa Xasan Sheekh Maxamuud talo dawladda Itoobiya ma soo dhaweysan doona oo xiriir qoto dheer ma la sii samaysan doona mise halka ay maanta joogto ayuu uga tagi doonaa oo wax xiriir ah lama yeelan doono miya faaqidaad ayaynu daawadayaal ku sameyn doonaa halkan ayaan idinku soo gudbi doonaa wararkii ugu dambeeyay xogo iyo macluumaad ayaana daawadayaal halkan ku daawan doontaan ee daawade saaxiib meel waliba aad joogto soo dhawow muuqaalkan like saar siina share garay inagu soo biir subscribe inoo saar channelka fura gambalaalka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaaladaynu halkan idinku soo gudbino waa ku maasantahay daawade la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiya commentigana aragtidaada saliimka inoogu reeb markaana daawade saaxiib waxaad ku soo dhawaataa faaqidaada qodobadii aynu soo dulmarnay aynu ku bilaawno siyaasadii Itoobiya ee ku wajahneyd Soomaaliya ayaa isbedeshay Itoobiya ayaa bilowday in ay heshiisyo amni iyo kuwa difaac la gasho qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya iyadoo ku xadgudbaysa madax banaanida dalka madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa looga yeeray Addis Ababa waxaana lagu wadaa in uu la kulmo madax sare oo dawladda Abiy Ahmed ka tirsan oo heshiisyo la soo galayo sidoo kale waxay Itoobiya heshiis kula jirtaa Jubbaland, Puntland iyo Somaliland iyadoo Hirshabeelle ay booqdeen taliyaal sarsare oo doonaya in laga gacan siiyo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee iminka markaasiba ka soconaya dhanka Hiiraan baarlamaanka Soomaaliya waxaa looga baahan yahay in uu sameeyo sharciyo lagu ilaalinayo danaha qaranka madaxda maamul goboleedyada ee ku kacaya falalkan oo kale oo dastuurka jabinaya waxaa loo baahan yahay in laga hor istaago tallaabooyinka kala qaybinaya dalka sidoo kalena xasiloonida wax u dhimaya waa wax aan la fahmi karin sida madaxda maamul goboleedyada uu heshiis markaasiba military ula saxiixdo dawlad shisheeye iyadoo markaasiba dalka uu leeyahay dawlad la soo doortay oo mas'uul ka ah ilaalinta danaha qaranka iyo dastuurka Itoobiya ayaa intii dalka dagaalka sokeeye ka socday siin jirtay hub hogaamiye kooxeedyada iyadoo markii dambe dawladda dhalatay uu weecisay kala qaybinta dhanka maamul goboleedyada ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa u muuqda in uu dagaal kula jiro Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha talada haatan haya ee Soomaaliya kaas oo ku soo baxay doorasho dalka ka dhacday 15 May kadib markii uu ka carooday booqashadiisii Masar oo xiisad ku qotanta biyaha webiga Niil kala dhaxaysa Itoobiya iyo Masar iskuma wanaagsana maadaama ay isku hayaan qadiyada webiga Niil ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaana ka xanaaqsan in Xasan Sheekh Maxamuud uu safarkiisii ugu horeeyay ku tago Masar waxaana uu isleeyahay Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu iminka jari karaa siyaasadda Itoobiya waxa uu soo dhaweysan karaa siyaasadda Masar inta aysan biyaha ku soo gaarin iskamus sidaas ayuu qorsheenayaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa haatan waxa dagaalo culus uu kula jira jabhadda falaagada ee TPLF taas oo ka dagaalanta gudaha wadanka Itoobiya moojada dagaal ayaa ku furan ninkan ra'iisul wasaaraha ka dalkaasi Itoobiya waxa uu saaxiib la ahaa 5 sano ee la soo dhaafay
madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. madaxweynihii hore ee Soomaaliya ee sagaalaad Farmaajo ayaa waxa uu doono u sameynayay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed intii uu joogay xukunka ama talada dalka muddadii 5 sano ahayd ee uu ka talinayay madaxtooyada qaranka ee Villa Soomaaliya. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa iska fogeeyay Kenya, Masar iyo sidoo kale dalal kale oo Imaaraadka uu ka mid yahay, waxaana uu soo dhaweystay dowladda tani Itoobiya. Farmaajo ayaa 8 February 2017 xilligii uu ku guuleysanayay doorashada madaxtinimo ee Soomaaliya waxa uu ololihiisii doorashada ku soo galay Itoobiya nacayb iyo sidoo kale Kenya jacayl. arrintaas ayaa isbedeshay kadib markii uu ku guuleystay kursiga ugu sareeya ee dalka. Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa markii uu yimid Villa Soomaaliya waxa uu iska fogeeyay Kenyadii uu jeclaa, isagoo iminka u aqoonsaday in ay Kenya tahay cadowga Soomaaliya. sidoo kale Xasan waxa uu soo dhaweystay Itoobiyadii uu necbaa, waxa uuna leeyahay iminka Itoobiya waxa ay tahayba qofka ama dalka ugu horeeya ee markaasiba taageero dhinac waliba la siiya wadanka Soomaaliya oo ka soo kabanaya burbur baaxad leh. Farmaajo ugu dambeyn waa laga saaray guud ahaan Soomaaliya kadib doorasho ka dhacday 15 May hangarka Vision xindaabka xalane ee magaalada caasimadda Muqdisho. Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iskuma wanaagsana. Farmaajo ayaa doonaya xilligan in uu kala qaybiyo dowladda cusub ee dalka ka curatay oo hogaaminaya Xasan Damul Jadiidna ay qaybta kala yihiin. Farmaajo ayaa doonaya in uu ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ka dhaadhiciyo in uu markaasiba burburiyo Soomaaliya, isagoo ka soo weeraraya dhinacyo kala gedisan oo ugu horeeyo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo uu hogaamiyo Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. muddooyinkii la soo dhaafay dagaal culus ayaa ka socday dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. dagaalkaas ayaa waxa uu u dhaxeeyay Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidamada liyu booliska ee dowlad deegaankaas. dagaalkan ayaa waxa loo arkaa aragti kale oo Itoobiya ay doonayso in ay ku soo gasho Soomaaliya. madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Cumar Maxamuud Cagjar ayaa mar uu hadlayay waxa uu tibaaxay in qadca gaaran ay ka sameysanayaan gudaha Soomaaliya halkaasina ay kala dagaalamayaan Al-Shabaab. tani ayaa waxa loo arkay ujeedada xambaarsan in Itoobiya ay damacsan tahay in ay gudaha u soo gasho Soomaaliya. Itoobiya ayaa daneynaysa in ay markaasiba xukunto qaar kamid ah madaxda maamul goboleedyada dalka, maadaama markaasiba Kenya qodheeda ay mar waliba amarada bixiso, amaradaas oo la siinayo dowlad goboleedka Jubbaland. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland isaga waxa uu ka amar qaata ama amarka laga siiyaa Nairobi oo caasimadda dalka Kenya, halka hadda la doonayo in Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen amarka ama talada uu ku hogaaminayo maamulkaasi laga siiyo Addis Ababa oo caasimadda dalka Itoobiya. warkan ma suurtageli kara ay leeyihiin falaqayaasha ka faalooda arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya, balse dadku waxa ay dhanka kale tibaaxayaan in uu suurtageli karo haddii Xasan Sheekh Maxamuud uusan waxba ka oran oo uusan waxba iska weydiin. dowladda Itoobiya waxay mudan tahay in la iska celiyo oo markaasiba la iska difaaco. Laftagareen oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliyana haatan waxa uu u muuqdaa mid markaasiba isku dhiibay Addis Ababa. madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo ahaa adeegii ugu weynaa ee Farmaajo iyo Faad Yaasin Xaaji Daahir ayaa waxa uu markaasiba aaday Addis Ababa oo caasimadda dalka Itoobiya. haatan isagii oo dhamaa ayaa gacanta lagu dhigaya, waxaana ugu dambeyn la doonaya in Laftagareen uu talada ka amar qaato ama uu talada ka qaato caasimadda wadanka Itoobiya ee Addis Ababa. sida ay sheegayaan xogaan u helnay diyaarad military oo ay leeyihiin ciidanka Itoobiya ayaa Laftagareen ka qaaday garoonka Shaati Gaduud ee Baydhabo, halkaas oo ay maalmihii la soo dhaafay ku sugnaayeen saraakiil ka socday ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed. wixii warar oo daawadayaal ku soo kordha barnaamijyadeena dambe ayaa ku daalacan doontaan
daawade saaxiib meel waliba aad joogto muuqaalkan like saar siina share garay inagu soo biir subscribe inoo saar channelka Furagan Balaalka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaaladaynu halkan idinku soo gudbino waa ku mahadsantahay daawashadaada iyo la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo ee commentigana daawade saaxiib aragtidaada saliimka inoogu reeb tan iyo barnaamijkan kiisa kale intaynu dib isugu kulmi doono waa baada barnaamijka oo idile sidaas iyo nabadgelyo